madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane axmed cabdi oo uu weheliyo wasiirka wasaaradda difaaca dalka mudane cabdilqaadir maxamed nuur ayaa soo gaaray maanta furimaha hore ee deegaanada bariga gobolka galgaduud ee hoostaga degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud oo maalmihii ugu dambeeyay ay xoogaga deegaanka iyo ciidamada xoogga dalka ay ka saareen kooxaha khawaarijta ah ee lagula jiro dagaalka adag goobaha ay tageen madaxweyne qoorqoor iyo wasiirka difaaca dalka ayaa ah goobintooda badan ciidamadu ay ku gaareen howlgalka dhamaystirka wajiga koowaad ee galmudug lagu xoreynayo kuwaasi oo guulays daba jooga laga gaaray maalinba maalinta xigtalan lagu sii siqeeyo meelo hor leh furimaha hore ee ay joogaan xoogag dhiiran oo dhifeesyada ugu galay kana saaray khawaarijta firxadka ah kuwaasi oo safaf ballaaran si garba simana subax walba ugu sii siqeeyo meelo hor leh ayaa salaan iyo dhiirigelin ka guddoomay madaxda ugu tagtay goobaha ay ka qabteen cadowga kuwaasi oo la qaybsanaya xaaladaha adag ee aan sinaba u sahlanayn madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor oo uu la socdo wasiirka gaashaandhigga dalka mudane cabdilqaadir maxamed nuur ayaa mid u tegay goobaha la xoreeyay waxaana ay la sheekaysteen shacabka laga dulqaaday khawaarijta oo durbad dareen dowladnimo la qaybsanaya deegaanada dhigooda ah ee hortood xorta ahaa iyagoo geesta gala la hadlay geesiyada ciidanka xoogga dalka oo kaashanaya xoogga deegaanka kuwaasi oo subax walba dhiiran cabdullaahi warsamar oble warbaahinta qaranka furimaha hore ee gobolka galgaduud